maanta waxaynu qaadan doonaa asbaabaha keena in uu kugu dhaco dhaqaale burbur ama dhaqaale darro kugu dhaco bulsho badan ama dhalinyaro badani maanta waxay ka cabanayaan in dhaqaalahoodu siiro yahay ama ay shiid yihiin ama ay bilaa camal badan oo haysto laakiin ogsoonow oo laga yaabaa haddii bishii $100 oo kaliya ay ku soo gasho inaad iska yareyn kartid expenseska ama kharashaadka faraha badan leh si $100 maanta ka bacdi uu kugu noqdo mid muxuu haayay kora oo balaadha oo hanti aad maalgashi aad ku sameyn karaysid waxaan soo qaadan doonaa caadooyinka qofka ka dhigi kara qof inuu qofku noqdo faqiir waxa ugu horeeya qofku inuu noqdo qof sigaar caba kaba soo qaado maalintii waxaad cabtaa haddaad sigaarka cabtid waxaad cabtaaba 10 midh oo sigaara oo xabadiiba laga qaado ka soo qaadba 1 shilin ayaa laga qaadaa bal ku dhufo waa 10 shilin 10 shilin waxay u dhigmaan almost waa $1 bishii $30 ayaad sigaar ku cabisaa marka $30 haddii aad meel dhigan lahayd oo aad 10 bilood aruurin lahayd waxay noqon lahayd $300 $300 waxa laga yaabaa inaad hawl aad ku qabsan lahayd sidoo kale qofka muxuu haayay alcoholismka alcoholsha iyo khamriga caba qofka qaadka cuna iyo qofka muxuu haayay balwadaha lacagta badan ay kaga baxdo muxuu haayay ahba isagana kaba soo qaado maalintii wuxuu ku qaylaaba $5 marka bishii lagu dhufto $150 $150 haddii sanadkii lagu dhuftana waxay noqonaysaa ama 10 bilood lagu dhuftana $1500 $1500 oo 3 sano aruurisa waa $4500 $4500 ganacsi intee leeg ayaa ay ku sameynaysaa markaa sidoo kale waxa kamid ah inuu qofku uu markasta ama maalin kasta inuu hudheelka iska galo oo barqadii uu hudheel galo cunto ka cuno habeenkii inuu cunto uu ka cuno hudheelka laga yaabaa in maalintii celceliskii $10 wax ku cuno $10 waxa laga yaabaa haddii uu xaafada qayb kamid ah $10 ama 30 shilin hadduu xaafada ku darsado waxa laga yaabaa in uu ka maarmi lahaa oo safe gareysmi lahayd wax ku dhow $70 la midina haddii lagu dhufto bishii waxa weeyaan waa $210 $210 marka lagu dhufto 10 biloodna waa $2100 saddex bilood lagu dhuftana waa $6000 iyo dheeraad marka halkaana lacag baa ka safe gareysmaysa sidoo kale qofku inuu noqdo qof biyo badan iska iibsada mar walba waxyaabo aan u baahnayn iska iibsada dhar aan u baahnayn iska iibsada waxaan daruuriyaadkiisa ku jirin hadduu ninka dhalinyarada uu ku mashquulo bil walba uu koofiyad cusub soo iibsado saacad cusub soo iibsado mobile iPhone iska soo iibsado mobile kale iska soo iibsado shaari surwaal iyo dhar iska soo iibsado taasina dhaqaale burbur bay keenaysaa marka taasina waxay keenaysaa in jeebkaagu nacas ka noqdo oo lacagtaadii aad shaqaysatay aad dadka ku fangarayso caadooyinkaas iyo caadooyin kaleba waxay oo keeni karaan in lacagtaadu baxdaa waxay keeni karaan in noloshaadu muxuu ahay ciriiri noqoto inaad faqri noqotid inaad dadka wax weydiisatid iyadoo bishuba 20 maraysa ama dhowr iyo 10 maraysa laga yaabaa in aad muxuu ahay tiraade hebel lacag soo dir heblaay lacag soo dir aad dadka muxuu ahay aad baridid marka ilahaas waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha keena inuu qofku faqri noqdo oo muxuu ahay ku sababi kara in lacagtii soo gashay ay si yar oo fududay kaga baxdo